boqor cismaan oo dee waxaa lagama filin maanta si fiican baa lagu soo dhaweeyey. waxaa lagu soo dhaweeyey sidaad huwanta ula dagaalantay maanta inaad magaalada ceelafweyn oon dadkii kala xidhan yihiin oo la heshiisiin dadka heshiisiin inaad siyaasad ka dhex saartaa maanta looma baahnin hadda waa kaasoo quluga laba inaan habar jeclen la ayo mid 16 jir yahay ciidamadii oo dhan baa kasoo kaxaysan oo ka jeediseen dee maalintii oo dhan ninkaa Muuse Bixi wuxuu yiri war Faysal oo ninkaas loo taagin maayay ma iska daysi war maahay maanta loo baahan yahay maanta waxay siyaasadda ka baxda oo nin isaaq noqoto oo guud ka shaqeysa hay'ad maanta isaaq habar jeclen waad kala jabisay isaaqna lugtaa jabisay waad ogtay inaanay ciro inaanu awal ogoleen inuu maanta madaxweyne noqdo way geeri ka xigaan de marka inay Somaliland burburto ayuunbaa ka shaqaysay wanaag kamaad shaqeyn waad ogtahay saxaabadiisu xitaa dubuu soo baxo waa la dagaalamaya awalna wixii xagay xukumi doonaan marka maanta waxaad ka shaqaysay burburka Sheekh Isxaaq dibigaasan gacan badh baan ku leeyahay laano anaad ili ninkaas ilaa ilaahay yimaado waa loo baahan yahay ceelafweyn kugu yeedhay inaad dadka cunta isku saartid isa saamaxaan dhulka laga kiciyo nimanka ku soo durkay laakiin siyaasaddan meesha dhex gelsi ana Britain hadlaya daleela ana Britain hadlaya oo ka hadlaya maanta qoon dhibaato aad geysatay maanta isaaq ku soo dhex turtay maanta ka hadlaya wadana ihtisaamka ahaa inaad raacday maanta ayaan ku soo saaraya isaaqna halkaas ilaahay badbaadin kara ilaahay shacbiga gacanta kuma haysan shacbiga ilaahay baa gacanta ku haya iyo codkaba sharafta iska dishi